الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وحين كهلينا الزوج يا زواج كوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام نوجده شرعنا لوجده لقصوا بالله وقلقي مركي لأبوري لجده وحانا كجرة كالجورسي أما جوركو كالجعال يا رحمة لبضل إن حقه ذكاهاتي لكن عصري هذا أن كل الله وحا أدف ربطي مشاكش ama dhibaatooyinka soo dhaxgalaya labada qofood ay isqaba halkii dadkii hore ay naga fududaayeen nolosha xaggeeda laakiin maanta ayaa aad mashaakilaad fara badan la dareemaya dadka culimada ah dadka xukuumadda ah oo aqliga u saaxiibka ah waxay aad u bixiyaan nasiixooyin ku saabsan xagga kala guursiga iyo cidda guursanaysa qofka uu guursaday bal yeelagayso walaalkaygiiyo nin Araabi ah ayaa wuxuu u nasiixay wiilkiisa oo doonayay inuu haweeney guursado wuxuu ku yiri wiilkaygiiyo 7 naag ha isku guursan oo agtooda aysan hamarin nikaaxaada aysan qaban waxay tahay midda marnaana ah iyo anaana iyo xanaana iyo xadaaqa iyo baraaqa iyo shadaaqa wala ashbata daar 7 dumar ha guursan haddaba dumarkaas maxay kala yihiin calaamadahooda bal la dhageyso adiga qanci doonee midda ugu horeysa marnaana waa midda mar walba ninkeeda u galad sheegataa tiraahdaa soo aniga ma ahan cariirigii jiray ninka qofka ka bixiyay soo aniga ma ahan waxa ku siiyay soo ehelkeena soo waxa kuma qaban soo guriga iyo ehelkay waxa dhan soo hebel iyo fahlayna ma siin walaalkeena ma siinin mar walba waxay xustaa waxa loo qabtay ninkeeda ay u sheegtaa mafrad qaraabada ay u qabteen amba ayada ay gacanteeda ugu qabatay taa haba guursan midda ku xigtaa waxay tahay al-anana ومد مر والبشير شبابا حنونا دريما أو جاء من أمراض يشيغانيسا أفر لا تنكسا ويجدوبيسا مررك قارة حتى لغيها بإني بنتهي أو دونيسا قرشكا إني دقاتيرتا كل ميسا تانها قرسا ومر والبجريد أنا كبحين أيضا جرنين إسجرسينيسا واحد مدى سدحالة waxay tahay mid xanaana la yiraahdo waa mar'a ana garnay ninkeeda xaq oo ku leeyahay mar walba hilo iyo kalgacal waxay u qabtaa guriga aabaheed ama ninkeedii hore caruurtii u dhashay ay ka jeceshahay ninkeeda oo 24 saac ay kaga mashquulshantaa ama aabaheed ama ninkeedii hore ilmihii u dhashay ay 24 saac kulkulina xanaaneen ninkeeda ma ihtimaamayso taan yuusan xaragaaga qaban oo ha guursan midda afraad waxay tahay al-xadaaqa waa midda mar walba waxa haysatay isan ku qanacsan waxyaabaha dadka qeyrkooda gacanteeda ku jiro gabar ay soo aragtay gurigeeda waxay rabtaa gabadha gurigeeda kale in laga dhigo hadii looga dhigana ma qancayso dar ay soo arkaysaa waxay ku kalifaysaa ninkeeda inuu dharka nooca u gado hadii kale uusan jeclayn waxa igad mar walba waa mid doonayso in wax loo soo iibiyo laakiin lam tashba abadan weligeed ma dhargeyso taani nikaaxaadi oo qaban oo ha guursan midda kale baraaqada la yiraahdo waa mid 24 saac ku mashquulsan jirkeeda inay qurxisaa oo doonayso inay jamaalkeeda iyo quruxdeeda dadka iyo adigaba kugu faanto banaanka u soo muujiso agtaana ha guursan weligaaba yuusan dabaq ama nikaax adiga alla yuusan soo gelin midda shadaaqada la yiraahdo waa mid soodkeeda sare u qaado hadal fara badan leh been badan 24 saac hadal aan qiimo lahayn mar walba dhagaha ugu daalinayso oo ninkeeda uusan ka nasa karin waxay dayacaysaa ama ay isku dayaysaa in awqaadaada dhan hadal fara badan ay ku geliso midda toddobaad waxay tahay midda cushbatu daal la yiraahdo waa midda gurigeeda ka dhigta qabri sidee qabri ugu dhigaysaa ihtimaam ma siisan nadaafadiisa guriga awlaad ay ku dhashay ihtimaam ma siisan nadaafadooda adiga nafsadaada hantaadana ma siiso ihtimaam dharkaaga iyo labiskaaga kama fikirto ayada nafsadeedana saasoo kaleeto kama fikirto oo mar walba waa mid guriga mugdi yahay booreysan yahay habaas yahay ay ka muuqataa duruufo aad u dheer taana ha guursan oo ka dheeraaw waxaad guursataa mid qalbigaaga awlaadaada jirkeeda guriga intaba nadaafisaa kuna dadaal gabadha diinta leh taa ayaa nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam فاظفر بذات الدين تربت يداك أذيك اللي معيسان دونه واحد لازم تاولا
gabadha uu nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam